بسم الله الرحمن الرحيم maantay waxay maxkamadda gobolka qaybteeda caadiga ah u fadhiisanaysaa dacwad shaqo ah mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh qofna shaqadiisa looga maceelin karo kamid ahaanshaha uu kamid yahay urur shaqaale bismillaah mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh waxaa rabaa in halkan ka soo jeedino inay maxkamadda ikhtisaas amba awood garsooreed ee u lahayn inay dhexdhexaadiso kiiskan mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh danta guud ayaa mar walba ka horeysa danta gaarka ah alraxiim company wuxuu shaqo abuur u yahay 500 oo qofood ku dhawaad maantay waxay maxkamadda darajada koowaad dhageysatay dacwad u dhaxaysay dhinacyada kala dacwada xasan xuseen xasan dacweysane alraxiim general trading company dacwadaas oo ahayd dacwad shaqo maxkamaddu waa noo xiran tahay anigoo ah yuusuf cabdiraxmaan waxaan barnaamijka maxkamadda ku matali doonaa garsoore taaliye qareenka dacweysanaha qareen dhanka dacwooda abukaatnimo qareen dacwooda qareenka dacweysanaha qareen dhanka dacweysanaha barnaamijka matalaadda maxkamadda waa imtixaano xiise leh oo ardayda kuliyadda sharciga ee jaamacadda simad ku soo bandhigi doonaan kiisas maxkamadeed oo ay ayagu mataleen kuwaas oo ka turjumaya hanaanka ugu fiican ee loo mari karo oo cadaalad falidda bulshada